Bismillah, mid ka mid ah su'aalaha aadka Soomaalidu isu weydiiso hase ahaatee aan loo hayn jawaab waafi ah waa su'aasha ah Soomaalidu xaggee ka soo jeedaa asal ahaan Soomaalidu halkay ka soo jeedaa haddaba waxaa la yidhi fahmu su'aal nisful jawaab su'aasha oo aad fahantaa waa jawaabta barkeed si aan uga jawaabno su'aashaas waa in aan fahanno waxa lagala jeedo Soomaalida marka aan leenahay Soomaalida ma Soomaalida hore ayaan ka hadlaynaa mase kuwa cusub ma reer waqooyiga reer galbeedka reer bariga mase reer koonfurka ma kuwa madmadow kuwa cadcad mase kuwa u dhaxeeya ma kuwa timaha jilcan kuwa timaha adag mase kuwa u dhaxeeya kuwa carabta sheegta kuwa afrikaanka sheegta mase kuwa aan cidna sheegin kuwa waqtigii ay yimideen la yaqaano iyo inta boqoloo sano ay degan yihiin waddanka iyo meesha ay ka yimideen mase kuwa aan la aqoon meesha ay ka yimideen amaba aan meelna ka imaan ma kuwii la addoonsan jiray mase kuwii wax addoonsan jiray ma kuwa nasab dhimanka lagu sheego mase kuwa sheegta nasab ma kuwii yimid mase kuwii loo yimid ma xoololeyda beeralayda kalluumaysatada mase garabratada maxaad kala jeedaa marka aad leedahay Soomaalida ma kuwa af Soomaaliga ku hadla mase kuwa ku hadla luqadaha kala duwan ee faraha badan ee looga hadlo waddanka maxaad kala jeedaa marka aad leedahay Soomaalida su'aasha kale oo meesha taalla ayaa ah haddii aan ogaano meesha ay Soomaalidu ka soo jeedo maxaa soo kordhaya sidee ugu fikirtay in Soomaali oo dhan ay isku asal yihiin maxay soo kordhinaysaa haddii aan maanta ogaano oo laba meesha ay ka soo jeedo qasab miyaa in Soomaalidu ay meel kale ka soo jeedaan ma dhici karto miyaa in ay meesha weligood deganaayeen ilaa haddana degan yihiin kulligan waan la soconnaa dhibaatada uu noo geystay qabiilka iyo qabyaaladda haddii Soomaalida loo sii kala saaro qowmiyado iyo asal iyo farac maxaa imaan kara ayaad isleedahay su'aalahaas oo dhan markii laga jawaabo ayay imaan kartaa su'aasha ah Soomaalidu xaggee asal ahaan ka soo jeedaan intii ka horreysa maxay adiga kula tahay